waxaan wanaagsan idin madawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan xilligan idin hayno waxa ugu waaweyn xogta Itoobiya oo dalab culus u soo dirsatay Soomaaliya xilli Abiy Ahmed uu ka jiifan waayay heshiiskii xalay lagu go'aamiyay in Masar ciidankeeda la keenayo Soomaaliya muxuu yahay dalabka Itoobiya wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed oo wajiga u bedeshay filan Soomaaliya iyo kulan aan loo kala kicin oo maanta ka dhacay madaxtooyada haddaba uu u dhaxeeyay shirkaas waa samaxay qorshaha cusub ee lafta gareen sidee filan Soomaaliya u qancisay madaxweynaha Koonfur Galbeed wararka kale waxa kamid ah madaxweynaha Somaliland oo wax war ah laga waayay tan iyo markii uu shalay u baxay dalka isu tag Imaaraadka Carabta maxaa dhacay iyo Puntland oo guulo hor la ka gaartay dagaalka Daesh kadib markii maanta ay deegaanadii ugu badnaa kala wareegeen kooxdaas iyo raafkii ugu badnaa oo ka soconaya magaalooyinka Puntland qodobadaas ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah fadlan daawada muuqaalka like saar sidoo kale si share garay la sii wadaag qiyaarta kale ee kugu jirta baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno dawladda Itoobiya ayaa lagu soo waramayaa in fariin xasaasi ah ay u soo dirtay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya taas oo ku saabsan xiisada ku saabsan in ciidamo Masar ah ay imaadaan Soomaaliya isla markaana ay qayb ka noqdaan howlgalka cusub ee Azum warqad xasaasi ahayd oo loo soo diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kana timid xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxa lagu sheegay in Itoobiya ay aad uga walaacsan tahay talaabada ay qaaday dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee la xiriirta in ciidamada Masar ay imaanayaan Soomaaliya qaybna ka noqonayaan howlgalka cusub ee Azum waliba ay ka howlgali doonaan gobolka Gedo Itoobiya waxa ay sheegtay in arintaasi walaac badan ay ku hayso isla markaana ay ka dalbanayso in dawladda federaalka go'aankaas ama talaabadaasi ay qaaday dib u eegis ay ku sameeyso ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa la sheegay in uu xalay ka jiifan waayay isla markaana uu ka hoyan waayay heshiiskii lagu go'aamiyay in ciidamo badan oo Masaari ah ay imaadaan Soomaaliya isla markaana ay qayb ka noqdaan howlgalka cusub ee nabad ilaalinta waxaana arintan aad iyo aad uga shaqeeyay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdul Fattah al-Sisi waxaana kulankoodii ugu dambeeyay lagu go'aamiyay in talaabadaas la qaato ciidanka Masar ayaa walaac badan ku beeray Itoobiya waana sababta hadda warqadan iyo fariintan ay uga timid xafiiska ra'iisul wasaare Abiy Ahmed looguna soo diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la filayaa in jawaabta uu bixin doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay noqoto mid xaaladda uu naga sii dartay isla markaana Itoobiya walaaceeda ku sii ballaarida maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu go'aan ku gaaray in Masar uu xulafaysi weyn la sameesto isla markaana uusan gorgortan ka gelin in ciidanka Masaarida ah ay yimaadaan Soomaaliya si kastaba ha ahaatee waxa la filayaa maalmaha soo socda in ciidamo badan oo Masar ah ay ka soo galaan dhinaca badda iyo waliba sidoo kale kuwa kale oo lagu keenayo diyaarado military waxaana la filayaa in arintaasi ay noqoto mid kale oo si xanuujisa dawladda Itoobiya ayaa doonaysay in Masar aanan lagu soo darin howlgalkan sabab la xiriira in ay ishayaan iyo in ay uga xoog badnaan karto saaxada Soomaaliya maadaama Masar ay tahay dawlad horumar badan ee markaa gaarsiisan dhinacyo badan ku fiican sida militariga tiknoolajiyada iyo waliba sidoo kale arrimo kale waxgaag wararkeena kale hadii aanu eegno maanta madaxtooyada Soomaaliya waxa la xaqiijiyay in uu ka dhacay mid kamid ah kulamadii ugu adkaa oo u dhaxeeyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo lafta gareen kulanka waxa la sheegay in uu ahaa kulan miisaankiisu uu culus yahay saacado badan qaatay isla markaana aanan loo kala kicin xogaha laga helay kulankaas waxay sheegayaan in kulanka ay markaasi dalbatay villa Soomaaliya isla markaana loogu yeeray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen oo isagu ku wajahnaa magaalada Baydhabo isagoo ka yimid safar dhinaca dibadda ah lafta gareen ayaa la sheegay in uu qaatay go'aan kale isla markaana uu wajiga u bedeshay villa Soomaaliya xogaha ay heshay villada ayaana waxa ay tilmaamayaan in lafta gareen uu go'aansaday in uu ka laabto heshiiskii ay wada gaareen isaga iyo madaxtooyada ee ku saabsanaa in doorasho qof iyo cod la qabto isla markaana uu doonayo in uu qabsado doorasho dadban si waqti dheer uu u helo waxaana uu ku fakarayaa in uu qaado raadkii madaxweyne Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe haddaba iyadoo arintaasi ay aad uga gubanayso madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa laga dalbaday ama lagala hadlay Cabdicasiis lafta gareen in arintaas marnaba uusan ku dhiiran isla markaana ay tahay in uu ka fiirsado talaabadaas gudoomiyaha baarlamaanka oo ay isku heeb yihiin lafta gareen ayaana arinta si aad ah uga hadlayay iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu kulanka markaasi si adag uga hadlayay lafta gareen inkastoo aan la xaqiijin in la bedelay mowqifkiisa haddana waxa la sheegay in kulanka uu ku soo dhamaaday natiijo markaasi dhinacyada ay raali isaga wada yihiin oo aan sidaasi u sii weyneen
waxaa sidoo kale loo soo bandhigay Cabdicasiis Laftagareen qorshe kale oo ah in uu ku biiro xisbiga UPD ee uu madaxweynaha talada dalka haya Xasan Sheekh Maxamuud hogaamiyo. arrintaas oo la sheegay in ay ahayd mid kale oo miisaankeeda lahayd, Laftagareenna la doonayay in markaasi lagu beer la xawsado. laakiin Laftagareen ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda sida uu aqbalay in loo soo bandhigay in uu ku biiro xisbigaasi. madaxda maamul goboleedyada ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doonayaa marka laga reebo Puntland iyo Jubbaland in ay qayb ka noqdaan xisbigiisa UPD. madaxweynaha ayaana waxa uu sawiran barnaamij fog oo ah in dalka waqti kale oo badan uu sii maamuli karo amaba uu sii joogi karo. dhinaca kale madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa wax war ah laga waayay tan iyo markii uu shalay u baxay dalka Sultanka Imaaraadka Carabta. madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro oo shalay ay ugu wardambeeyay dadka Soomaaliyeed iyo kuwa reer Somalilandba ayaa ilaa iyo hadda wax war ah oo ku saabsan kulamadii uu la qaatay Imaaraadka, sida uu ku tagay, sida loo soo dhaweeyay iyo arrimo kaleba aanan wax xog ah laga haynin. dadka qaar ayaana baraha bulshada isku weydiinayay halka uu ku dambeeyay safarka Cabdiraxmaan Cirro oo markii hore aad loo hadal hayay. Cabdiraxmaan Cirro ayaa la fahamsan yahay in uu ku sugan yahay Sultanka Imaaraadka Carabta, laakiin lama soo bandhigin markii uu tagayay iyo sida loo soo dhaweeyay oo dadka inta badan ay markaasi u dhigtaagayeen. ugu dambeyntiina Puntland ayaa guulo hor leh ka gaartay dagaalka adag ay kula jirto kooxda Daesh iyadoo maanta deegaano badan la wareegtay. war ka soo baxay Puntland waxa lagu sheegay in ciidamadu ay gaareen guulo muhiim ah oo ku saabsan in ay ka saareen kooxaha argagixisada ah deegaano iyo fariisimo ay ku lahaayeen buuraha, waxaana ay soo bandhigeen goobihii ay markaasi kala wareegeen kooxda. dhinaca kale magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa waxa ka socda raafkii ugu badnaa ama ugu xoogganaa oo halkaas looga saarayo dadka ajnabiga ah ee ka soo jeeda wadamada Carabta iyo sidoo kale wadanka Itoobiya. Ethiopiankii ugu badnaa ayaana xabsiga la dhigay, halka qaar kalena markaasi la filayo in laga raafo ama laga tarxiilo deegaanadaasi. Puntland waxay sheegtay in amnigeeda marnaba aysan wax gorgortan ah ka galaynin oo ay diyaar u tahay in ay difaacato dadkeeda iyo deegaankeeda. gudaana qiyaaray wararkeena intaas ay ku dhan yihiin. intaanu mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanteen isku duuban sidaas iyo nabad geli.